meesha ku qoran waa sidee guusha loo gaadhaa saxankama waliba guusha dhabta ah intaynan wasaayisha isweydiinin oo ah sida loo gaadhayo maxaa guul ah qormaynu odhan karnaa buu qofka bini'aadamkii guulaystay ama guul dhaba goormuu gaadhay مثلا bini aadamku si uu guul ama guul darro u sheego waa inuu hadaf target la yidhaahdaa yool waa inuu calaamadiyaa meesha markuu xadido ee calaamadiyo ayuu isweydiinaya ma gaadhay mise maad gaadhin hadduu gaadhayna wuxuu odhanayaa waan guulaystay hadduu gaadhi waayana wuxuu odhanayaa waa maxay waan guul darraystay saxanka maaha مثلا qolada ordaya oo baratanka ku jira meel baa mara yar loogu xidhaa ama xariiq loogu jeexaa dabeetana waxa la yidhaahdaa soo dhabaabaceeya soo orda ka ugu horeeya xariiqda gaadha gacmaha cirka u taago yidhaahda waan guulaystay saxanka maaha يعني هدفku waa in xariiqda la gaadho oo intan kula ordaysaad ka dheeraysid oo aad ka hor gaadhid xariiqda haddii aan xariiqi jirin oo hadaf meel loo ordaya jirin ninba meeshu doona hadduu cararo kee guulaystay marka qaar xagga u cararaan hadday qaarna xagga u cararaan kee baynu odhanaynaa baa guulaystay guul iyo guul darro toona sheegi mayno waayo hadafkaan xadidnayn nolosha qofka bini'aadamkii markaa waxay leedahay ahdaaf kooban oo yar iyo hadaf weyn oo ka xaqiiqiga ah ahdaaf kooban bay leedahay مثلا arday baatiin iskuulka markaad sanadkan dhiganayso ee aad wax soo akhrido aad diyaar garowdo imtixaanka aad gasho aad baasto waxaad odhanaysaa waan guulaystay saxanka maaha waayo hadafkii koowaad ee ahaa sanadkan inaad dhammayso waa dhammayso markaad 3 sano ama 4 sano dhammayso waad guulaysatay waayo waraaq yaroo magacaagu ku qoran yahay iyo inaad secondary school dhammaysay waa lagu siinayaa markaad jaamacad gasho waan guulaystay baad leeday oo koofiyada yaryar iyo maryo yaryar aan kuweyn u ekayn hore inta lagu xidho ayaa lagu odhanayaa waa calaamadii guusha dabeetana waraaq waa lagu siinayaa haddaba nolosha goormuu qofka bini'aadamka odhan kara waan guulaystay noloshu waa wax kooban ninka dhallinyaradii inta badan nolosha intaasoo ku arkaa waayo wuxuu tiriyaa intuu jiray imsaad jirtay anuu 20 baan marayo 22 laakiin qofku markuu da' gaadho 60 iyo meelaha markuu soo gaadho wuxuu isweydiiyaa wartalow maxaa ka hadhay shan baa ku hadhay ma laba ku hadhay ma 10 baa hadhay intii xagga laga soo tirinayay dhamaatay hadda wuxuu xaggan ka tirinayaa wartalow intee ka hadhay haddaba nolosha oo dhan markaynu eegno goormaynu odhan karnaa qofku wuu guulaystay ama wuu guuldarraystay waayo qof walba xaqiiqada bini'aadamku uu wadaago ee wada rumaysan yahay baa geeri intaad doonto noolow waxaad doonto soo cun waxaad doonto soo qabo waad geeriyoonaysa idan xariiqda ugu dambaysa la gaadhaya halkan inta la joogo waa geeri intii ka horeysayna waa geeriyootay inta joogtaana waa geeriyoon doontaa waa geeri marka la geeriyoodo xabaal yar baa la isku wada ridaa haddaad xoolo badan shaqaysato bilyaneer ahayd 2 maroo yaroo cadcad inta lagu duuduubo ayuunba xabaasha lagugu ridi haddaad faqiir ahayd qaadaama dhargaan oo waxba haynin 2 marun baa lagugu duuduubay xabaasha lagugu ridi
haddaad magac iyo maamuus lahayd oo madax iyo wax soo martay marada unbaa lagugu duuduubaya halka unbaa lagugu ridaya haddaad nin iska xamaalo suuqiisa iska jooga ahayd maradan unbaa lagugu duuduubaya halkan marka dadkiiba ma isku wada noocba wixiiba ma maradan yare lagu duuduubaya ku dhammaanaya kee guulaystay markaa haddii wixiiba mara yaroo cad inta lagu duuduubay god lagu riday keebaa guulaystay dadkan noloshu waa inay hadaf leedahay waa inay qasdi leedahay markaasaynu garan karnaa yaa guulaystay yaan guulaysan man yutic illaaha maxaa ku xiga warasuula maxaa ku xiga ilaahay wuxuu tilmaamayaa ciddii ilaah iyo rasuulkiisa adeecday ayaa maxay ayaa fawska alfawz alcadiim kuwaasaa helay qur-aanka 4 jeer baa ereyga alfaa'izuun ku soo arooray 4taba wuxuu ka warramayaa ka الفوز العظيم صدح يطبن جربة كسو أرورتي صدح يطبن كجربة آخرة كورميسا الفوز الكبير مربى كسو أرورتي إيانا حقا سيكا ورميسا الفوز المبين لما جربة كسو أرورتي لحية طبن جربة إريقا الفوز اللي هذا قرآن كسو أروري لحية طبن جر لحية طبن كجر مدنا الدنيا كورميسا لحية طبن كجر إلهي يري ذلك الفوز العظيم أما هو الفوز العظيم أما الفوز المبين أما الفوز الكبير ليري انتم وحي كورميان وآخرهم إذن قوش الدبت أن نلش قوش الدبت داهي ومركات آخر بدباده فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلهي وحين وقوى الرمي عدة قوليستين عدة سقرطهي سيداوغي سيدين لو بدبادا ما سيدين لو قادا قوشا نبطا هدين لهنو وين نقطة طريق كستو ميشا كو قارسين ايا وحي لو بدبادي لها طريق كستا وماشى الليبان تيدا كو قارسين يا وحي لغو بدبادي لها ولذلك قرآن كإلهي النبي نقول الماما أنبياء دمان تدوى قول استسامها نبي فاشل لم يجره مايا هدنا إلهي قرآن كوحي نقول الماما أنبياء دا قار مضح النغضي والدولة دا معمولي وچني ينسبه تليي سيدي سليمان يا داود يا أنبياء مدح وين الله وقوى الرب وحكى الله القرآن كوربا وفريقا تقتلون أنبياء للايي إن وح معمولات دايين وحقبته كولا قسيي ما إلهي القرآن كوربا هدنا وحي لنا أنبياء دوا ودي قوليستين نبي فاشل ما جرى ما قول درستين نبي ولي بو قوليستين واي هدفك حقيقي أن الله شو قرط الله شو محيط هيبو فهمي dabeetana isagoo jidkii nolosha ku socda ilan qof waliba waa dhimanaya ma hal gudila ama meel saka ku dhimay qof waliba waa dhimanaya isagoo jidkii hayay ka baxday saadaradeed baa loo leeyahay wuu guuleystay laakiin dhalinyarada weydiiyay ninka badaha isku maqiiqay ka booda ee naftu kaga baxdo iyo ka talaabay Yurub gaadhay ma nidhaana kaasi waa guuleystay midna wuu dhintay sax ma tahay يوروب إلا قاعدة واحد نفط الله بحياة ميت يوروب لا قاعدة واحد نفط الله رميت واحد نلشوا واحد قلنا وليد ميت وهدي اللواية أي تهينا الضمطه أيها الأحبة dadka intiisa badan waxa ka qaldan wixii loo noolaa markii la garan waayay waxa loo nool yahay ayaa ninba bad cidla ku geeriyoodo meel kala ah qofba sidoo meel u orday mid isagoo xoolo raadinaya ka baxday mid isagoo dad laynaya ka baxday waliyahan dagaalama reer buu dagaalamaya wuxuu haystaa reerka kale haday dad badan ka laayeen inay guuleysteen iyagoo faraxsan bay soo noqoneen maxaa qabateen waa jabinay buu leeyahay reer hebel xabadi kama saydin reer hebel haddii aakhiro loo diro miyaa la guulaystay reer hebel haddaynu aakhiro u diro ma guulaysanay
يعني dadku waxay garan waayeen wixii loo noolaa hadaf الحياة baa la garan waayey waxa loo noolyaa la garan waayey waxa wax loo baranayaa la garan waayey waxa loo guursanayaa la garan waayey waxa loo joogaa la garan waayey waxoo dhama haday lilaahi yihiin ya ilaahi tiisa wax idin gaarsiinaya wa fuztu wa rabbil ka'bah saxaabi uu sheegay intii midida la galiyay waranka la galiyay saxaabiga geeriyooday wuxuu yiri fuztu wa rabbil ka'bah waan guuleystay buu yiri rabbiga ka'bada laba ku dhaartay waana la dilay waliba dil qadriya baa la dilay yani dil khiyaama dika waraadnimo u timaado oo marka hore wax ku sheegaan oo dabatan nasiixadooda ka talinaysay oo markaad u timaado mid intu xaq daba ka maro waran ku galiyo Allah tallaahi nimanku way khiyaameeyeen nimanku way dhakreen laakiin inuu wuxuu arkayay nolosha wixii uu raadcaynayay inuu helo shahaada saadaradeed ma eegin qoladan khiyaamaysay iyo makriga la sameeyay iyo waxaan oo dhan uma muuqan waxa uu muuqatay halkuu u socday wuxuu arkay inay dariiqii u soo gaabiyeen jannada loogu socday meel dhow inuu ka talaabsaday saadaradeed buu wuxuu lahaa fuztu wa rabbil ka'bah dhalinyaro waxaan idin sheegayaa marka ina guulaysataan iyo ina guuldaraysataan waxay ku xidhantahay hadafka aad xadidateen wax noolaada ma yahay oo cimri loo bixiyo oo waqti loo lumiyo mise maaha hadduu waxa qiimaha leeyahay markaad gaadho waad guulaysatay haddii aanu ahayn waxa qiimaha leh markaad gaadhaa buu habaan mansuura noqonaya ayuu ma waayaysaa wixii marka hore waxa salahayd guul baad xaqiijinaysaa ka yurubu si rooraya marka uu badda nafta ku halqayay waxa la guul baad gaadhaysaa laakiin markuu xagga kala tago ayuu baabay noloshu waa cidhiidhi noqonaysaa soo BBC meelaha ka maqashaan mid isagu qantaradii ka talaabo la wareysanayo la hadaa sidan moodayo way wuxuu islahaday halkan ka talawdo حاجة كلام لا جنة كحكتور رجيني لعق يا برادة يا برواقة يا ورسيدنا أقول بنتي نبلا أقول بيا حجارة حبيس ما بدلين حلقة يا ودتك برينا ينهضان هاي كوي حاجات يسوقوا قردارة صار استيمها ورن لكن غير كنا حلقة يا بين كون قفكر بفتاي إمسا دار صار استي توما صار استي سجال بقولي سجاشة كي كلمة يسويدي سن حاجة كم غيين وكوا هل كان شوكا طبعا كم بدمياني دارا دسان وهالكن جوجا dadka halkan degan toban kamid oo daara dhistay ma jiraan waan talaabinba ka badan ku halkan jooga inta daara dhistay ba waxay ka badan tahay in xagga tagtay daaraha dhisatay waxaan uga jeedaa haddaad xataa soo dhisato soo godka geli maysid waxa ka dambeeya noloshu waxay qiimo ku leedahay in la fahmo waxa loo nooliyay gaalada qaar badan baa maanta way istilaan waliba groupka istila waxa ugu badan tabaqada sare tabaqa alkaadixa ma ha dadka istila waa kuwa waxaysta waa injineerada iyo professorada iyo dhakhaatiirta iyo maalqabeennada waa kuwa dadka istila dad maqasho Yurub waa la istila dadka istila waa kuwa maxaysatadu isma dishay inta badan waayo waa mashquulba maxay isu dileen waxay moodayeen inuu guul yahay ba markay gaadheen buu dhadhan sameyn waayay waxay moodayeen guul ayaa markay gaadheen ayuu macno u sameyn waayay habeen dhaweyd baan dhakhtaray wuxuu lahaa waxaan dhalinyarada markaan ahayn buu yiri wax baro wax noqo cayn kan noqo dhakhtar noqo surgery wixii baanu noqonnay dabeetana markaan wixii noqonnay waa Yurub noloshii waxay noqotay buu yiri in lagu yiraahdo intaan jimcaha soo galo ilaa isniinta inaan dhakhtarka ku jiro waan waqti aad seexata lahayn waxba lahayn saacad kasta lagu toosinaya soo kac beeshan baa la keenay mid baa sakaraada mid baa cayn kana maxaan ku sameeynaa dhowr iyo 30 saacadood uma soo fadhiyaysa hadhow markaad noqoto waxaad noqonaysaa buu leeyahay adigoo daalan oo naftu ku haysato gurigii hudheelka haddaad tiraahdo wax waad ka wahsanaysaa waa daashay waanad cunno yaro intaad gaariga sii wado aad liqi karto waayo wuxuu rabaa sariirta hadduu gaadho inuu istuuro
kadib markaan muddo waday buu yidhi baa lacagtiina dhadhasamay war waxaad u nooshay waa maxay waxaan uu nool yahay ee uu intaasoo sano wuxuu soo baranayay ee doctorka u soo noqday ee qalliin u bartay ee mutakhasis u noqday ayaa markii uu gaadhay dhadhan samayn waayey waayo hadafkaa qaldan wuxuu noolaa baanu garanin tacab unbuu ka sii qaaday iyo daal iyo inuu seexan waayo dabeetana wixiiba intuu iskaga yimi meelahan yimi waxaan uga jeedaa iminka waxaad is leedihiin waxbaa maqan haddaad lacag badan hesho maxaad samayn lahayd aad baad wax u cuni lahayd caloosha wax badan ma qaado ma lacagta kuu badato intan aad iminka cunto ka badan ma qaado kadan haddii lagu ridana way xanuunsataa oo dhiikar iyo macaan iyo kolestarool iyo baliya baas baa ku dhacaya dabeetana waxaa lagu odhanaya haddaad rabto inaad noolaato wuxuu dhan waa inaad ka yaraysaa idan maxaad ku samayn daashay oo naftaadii waxay u baxday in lacag badan la helo lacagtii badnayd markii la soo helayna wax macnay samayn weydo hawl badan unbay keensatuun iyo inaad dadka la tukan kari weydo markaas salaada soo galbo 10 albaabka sukiisii taagto aad sidii wax waalan albaabka dambe ka boodid inta waxaysato u fiirso markii masaajidda soo galaan degdeg bay kaga baxayaan waayo 10 baa meelaha inta nafta la isugu keenay idan noloshiiba هذا أنت لا يركبها كقاطع ذلك كبحذا إذا كم توسعته صحيح ما وحكو بودر قرينا يا وحكو دبي ما أركتي أنت ما قاعد ما موسكله كمرت بلا لدى بوردي يا هالكو مريه وكانوا واللغلوغ باي مريان أنت مضانه لفه هذا وبقيان إمكانات مدحوينا النقطة دي مقاعدك شاهي ميسي حرية دواد وايس محبوس شرفات بعد نغنسة قلبات كو حرنتي مال لكن الغورن ما يوا حبسيه وقولك مدحتو يدا الغورن يوا قول شرف له وقولك شرفته لكن هذا كسو بخدا وين عسكريه بندقيه iyo qoriyo ku daba rooraan waa xabsi dhabaad galaysa yaa laga xabsinaya intaad u talinayso intaasaad ka baqaysaa iska ilaalinaysaa ka fogaanaysaa marka waa xabsi sharafeed baa la yiraahdaa waa maxaabis madaxdu laakiin waa maxaabis sharaf leh waa maxbuus aan wax cuni karin madaxda waaweyn dunida maqashaan wax ma cuno ilaa in laga dhadhamiyo mooyaane adiga ma cid cunada ka dhadhamaysaa wixii kula macaanaadaba waad iska cuntaa ninkan wax walba uu ka shakisay cunadiisa waa in la soo dhadhamiyaa gaadhigiisa waa in la soo eegaa halkuu tegayo waa in mukhaabaraadka oo dhan war ka bixiyaan meeshu maaha aamin maanta tegi kari maysid 10 kaan cashaha ku dhaafaan iska sug maalinta dambe caynkaas ay noqonaysaa waa inuu qof meel gaadho adigu meesha aad u baahato baska ka xiga inaad fuusho soo saamaha laakiin ninka madaxda ah meesha u baahdaa sida maaha idan bini aadamku wuxuu amaanta moodaya xabsi isu bedelay wixii uu rabay inuu xaqiijiyo ayaa xabsi isu bedelay ayuu waayay qofku xorriyadiisii uu ahaa qof bini aadam oo nool ayaa la xibba marka noloshan adduun qiimo ma yaalo noloshan adduun ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuhal insaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxa walaqad khalaqna alinsaana fii kabad problemkaa isbedela maalinba problemka aad ka fakarayso unbaa kii hore ka gedisan mushkiladda nooceedunbaa isbedelaya iminka waxaa laga yaabaa inaad leedahay dee mushkilad cunno yariya baa nahay soo 3 midhoo canjeelaabay islaamtuna siisaa naguma filla hadhowna mushkilad cunno xumiya unbaa ku helaysaa oo wax lagu odhanaya kana cuni maysid kana cuni maysid kana cuni cunnadu waad haysaa laakiin waa mamnuuc macaan baad qabtaa inta macaan cuni maysid barashar baad qabtaa inta dhanaan cuni maysid waa wax waliba waa mamnuuc iminka waad xorriyad baad haysataa laakiin dee maqaaxida waa iska fadhiya maxaad haysaa baan ku hayaa laakiin ka madaxweyne wuxuu isleeyahay mar uun yaa maqaaxidii kugu celiya iska shaahaysto dadka tidhaahda war maxaa haysaane ma haysto idan nolosha problemskeeda isbedela laakiin guul male tani marka aad heer ka tallowdaba mushkilad cusub oo isla mushkilad baad xallishay dhalinyaro wadatiin hadda wada guurdoon baad tiin soo maaha laakiin maalinta guursataan caruur yaryar iyo dhakhtar iyo islaantiiba uur leh iyo dhakhtarkaa la geynaya mushkilad kale baa ku bilaabmaysaa adduunku waa dhibaato marka adduunku waa kabad waa daal waa beer xanuun inta la nool yahayna waa lagu jiraya waxa ku jiray dadka kuwa ilaahay ugu jeclaa
يا ربي يقول علي دوني ضدتي نولا سو الرسول ماها رسول شيء الله يقول على أبا كتير يدبطه قرآنك الرسول للدلي يا الرسول لإريدي يا الرسول دقالمي وحب والله ينقى ورحب نبي محمد تاريخ دي سبينه إن عليه الصلاة والسلام أقول نمو رجعي نمو إنه لقى صار دولكو شيء ماشي سي دقال وقالو نفط الله سوكه وحاصل بني آدم كمرو مري إذن الحياة هكذا هذا ربنا الله شيء نقول كحقيقة إنه قولي وين تدي الله ودواته هذا إلهي كل دواتنا الله شنبا فضايد مسح حتى مشكلات كذا يصير نقرية مشكلات كذا سيدا لو حلله أي فضضانية أنا مركا waxaan rabaa inaan su'aalo badan madaxiina ku kiciyo jawaabuhuna intii almisidiin sheegay inay noqoto su'aalu waxa weeyaan nolosha tani waa kadeed hadaf alxayaa haddaanad fahminna adoo daalan unbaad god ka gelaysaa adoo daalan ama madaxweyne noqo ama taajir noqo ama bilyaneer noqo adoo daalan baa laba maro yaryar lagaaga duuduubaya wax kaa raacaya aanay jirin وحلالية واحد ودا شيء وحبك الراعي مايا وحبك الراعي مايا مدحوين أنا هانشري العقب اللي هانشري هبل بالله مركز مرضك وقضوا بيان بين ميتكو بحنايا حتى ما قاعد هلمانيا دي بلورن مايا مدحوين حباش في عنو دقا أما تاجر حباش سوى أكثرون دقا أما وهبل حباش سوى أكثرون عندك أورن مايس ميتك يدو الغولية هي ومالغو سوى ضيا haddaba waxaa habboon indhuhu dhalanteed bay arkaan caqliguna ama maskaxduna dhalanteed bay aragtaa dhalanteedka soo ma taqaaniin meelaha markaad u kacdo woodwardka aad moodo in biyo fadhiyaan maxaad tidhaahdaan ya okay ishu markay ka fog tahay waa biyo is leedahay لكن هذا عقله وصفي عنه شقين أيه أتقرن سينا نبيه هنا ماشي عاد هذا حيسه هذا تسي عقله جسي حسه أتراو أربع الكوردون وين تسوي بيه نقطاي عقله هذا تراو أرسله وأربع ماشي كوردون وين تسوي بيه نقطاي مركات ما دام حيسه بحيسه دالنتين همي جنفت الدنيا كوساب سنة ولا من هو النوعه wax kasta markuu ka maqan yahay buu ku yahay biyaha hilaacaya maalintaad se gaadho ayuu kula noqonayaa uun dhalanteedka aan wax weyn ahayn maalintaad gaadho un baanu wax badan noqonaynin haddaad buul ku jirto buulka waa lagu gamaa soo maaha waa la seexdaa haddaad daarta ugu dheer lagu saarana waa la seexdaa wax ka badan lagama soo helo soo buulka laguma gamo daartana waa lagu gamaa waxa naftu raadinaysaana waa maxay waa inay gamaado inay maskaxda tan mashquulka ka yara baxdo la seexiyo si ay mar labaad u shaqayn karto meel kasta naftu way seexan kartaa nin Soomaaliyeed baa waxa laga sheegay hurda aan macaanayna ma seexan cunno aan macaanayna ma cunin weedha caynkaasaa laga sheegay saddex masalo hurda aanan macaanayn ma seexan buu yidhi markaan u baahan u baan seexdaa markaad u baahan tahay markaad seexatana haddaad dhagax dushiisa ku seexato waad gamaysaa waa kaa imanaysaa markaanad see u baahnayn haddii lagu saaro sariiraha ugu fiican gami maysida waad burburaysaa cunadana waxay yidhaahdaa wuxuu yidhi cunno aan macaanayn ma cunin waayo anoo gaajoonayaan un baan cunaa buu leeyahy gaajadu waa iidaan adigoo gaajoonaya haddii wax lagu siiyo berigii qaxoontiyada la joogay ninka koob shaaha helaa wax ka macaani ma jirin saciga maaha ama in yaroo garowga helaa garowgaa candhuftaadaa iidaamaysa waayo gaajada wax waliba waa macaan noloshu waa sidaa maalin walba kaad heshaaba kula qadhaadhaanayo ka kaa maqan baa kula macaan maanta haddii garowga lagu siiyo dhadhami maayo shaahina dhadhami maayo waayo ka kale sii maqan baa kula sii macaan biisaad raadinaysaa laakiin berri markay biisadu kaa ag badatana dhadhami mayso kuwa biisada haysta inaanay u dhadhamin soo ma ogidin
ما ددانتو إذا نولش هدبا أنت مقام بمعان أو قفكو سليه ورملا أنت هداد قاعدو وحو يسبدل الهيد هذا ما العد لا فرديات سكوكا عنيسا لكن أنت مركز قاعدين يسبدل ماله سيدا وقيت نولش waxaan TV-yada laga akhrinayo iyo warkan yaan leedin mashquulinin waa beenaan waxba ka jirin dunida dadka istila iyaga oo isugu dil badan reer galbeed meeday barwaaqada hada sheegayaan soo saama ogidin statistics-ka dunida dadka naftooda dila waxa ugu badan galbeed waxaana ugu yar caalamul islaamiga Afrika kuwana waxba haysan ayaa ugu yar dadka isdila qof bini aadam oo isagu naftas ka qabta dadka isdila waxa ugu badan kuwa galbeedka jooga haday baraartay maxay isu dilayaan may noolaadaan waa dhalanteedkii dadkii gaadhay way cuntami weyd dabeetana ka tagabay sidaahdeen mala xaga kale aba war jiraay idan ayuha alhibba taladu waxa weeyaan ilaahayna abuuray baa yaqaana naftani waxay ku islaaxayso isagaa abuuray isagaana garanaya waxay ku islaaxayso wixii ay ku islaaxaysayna rususha alla inoogu soo dhiibay rusushuna waxayna bareen inaynu rabbigeena caabudno qof bini aadam oo qumman oo toosan noqono si aynu natiijada wanaagsan aakhiro u heli karno adduunkanna waxa laynoo sheegay inuu imtixaan yahay wixii laynagu imtixaamo inaynu ama ku sabirno ama ku mahadnaqno haddii caafimaad lagu siiyo inaad mahadnaqdid haddaad xaruusatidna inaad sabirtid hadday noloshu sidaa noqoto way fududaanaysaa dhadhan iyo macaanna way yeelanaysaa waayo طumaaniinatu lqalb qofku hadduu helo iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa wax ka maqani ma jiraan walidalik baa culammadii waaweynaan rag ka mid ah ibraahim ibnu ladham baa waxaa laga sheegay waxaa la yidhi jeex roodhiyo qallalan ayuu webiga furaad darsaday roodhi qallalan hadda qiyaas ayuu webiga darsaday markaasuu goostay nimcadaanu hayna hadday boqortooyadu ogtay buu yidhi way nagula diriri lahayd ninkaasi roodhi engegan buu adduunka sitaa wuxuu ku iidaantayna waa biyo meel maraya webiguu daraya si uu u raamin karo waxaanu leeyahay low calamat ilmuluuk hadday ogaan lahaayeen boqorradu waxaanu nimco hayno way nagula dagaalami lahaayeen waayo ninkani طumaaniinatu lqalbi buu hayay ilaahay buu rumeeyey caabuday ku kalsoonaaday noloshuu u arkayay waxa ay tahay dhadhankeeduu garanayay nolosha hadafka laga rabuu garanayay sidaa awgeed bay u fududayday u arkayay nin cala ariiqa jidkii saxaha haya inuu yahay idan waxa kaa maqan maaha waxa qofka ka farxiyaya waa waxa kugu jira iyo waxa aad dareemayso iyo sida aad u fakarayso iyo waxa hamiga ku haya kaas baa qofka ah waxa farxad geliya waxaan ku soo koobaya warka markaa in madaxweyne la noqdo guul maaha ee waa mas'uuliyad la kororsaday in lacag badan la helaa guul maaha ee waa mas'uuliyad la kororsaday in magac weyn la helaa guul maaha waa mas'uuliyad la kororsaday laakiin ama madaxweyne ahaw ama taajir ahaw ama magac lahaw ama miskiin ahaw inaad ilaahay raalli gelisaabaa guula idan qof waliba wuu guulaysan karaa bimaa cindahu min imkaaniyaat buu ku guulaysan karaa waxaad haysataa intuu leeg yahay haddaad madaxweyne cadaalad iyo diin iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo wanaag wada waad guulaysan kartaa alimaam alcaadil toddobada jannada carsh araxmaan harsanayuu ka mid yahay haddaad nin dhallinyaro oo dhowrsoon oo akhlaaq leh waad guulaysan kartaa shaabun nasha'a fii cibaadat illaah waad guulaysan kartaa haddaad qof yacni mustawaha nololeed ee aad joogto guushu markaa kuma xidhna adduunka inta kaa soo gaadhay magac iyo maamuus iyo hantina guushu kuma xidhna waad kadeednaan kartaa adigoo madaxweyne ah waad kadeednaan kartaa adigoo taajir ah waad kadeednaan kartaa adoo magac iyo maamuus leh waanad kadeednaan kartaa adigoo faqiir ah intaba kadeedku wuu la socon karaa guushuna way la socon kartaa idan guush iyo kadeedku
ama guush iyo guuldarradu kuma xidhna waxa gacantaada ku jira iyo magac iyo maamuuska aad leedahay inta uu leegya kuma xidhna kaa kuma xidhna waxa uu ku xidhan yahay inta aad rabbigaa xidhiidha leedahay inta aad nolosha macnaheeda fahmayso inta aad garanaysa maxaad u nooshahay qof hadduu maanta dhaqaaqo socdaal galo meel uu socdaana aanay jirin se uu yidhaahdo mar qura nasan maayo ow daalo muxuu kororhsaday waxba ma kororhsan soo maha laakiin haddaad hadaf leeday haddaad rabto inaad berbere gaadho waa hadaf la garanaya mar umaad gaadhi doontaa waa hadaf muxadada nolosha haddaad hadaf dhaba ka yeelan weydo 60 sano ama 70 sano lagu siiyey way dhammaanaysaaye haddaad hadaf ka yeelan weydo oo ah inaad rabbiga raalli geliso jannana raadacaysatid naarna ka badbaadid hadafkaa haddaad xaqiijin kari weydo noloshu qiimo ma leh wax kastoo agtaada yaallana qiimo ma leh waad kadeedanta inta kadeedan baad ku jirtaa haddaad intaa fahamtana inta guulaysataad ku jirtaa walow aqoontaadu ha yaraato tusaalaan idin siin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya xadiidka bukhaari ayaa nin soo maray qoladii la fadhido yidhi bal ninkaa ka warrama waxay idhaahdeen waa nin hadduu gabadh ku weydiisto waa nin gabadh la siiyaa bay idhaahdeen hadduu shafeec erge kugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbalo hadduu hadlana waa nin la dhegaysta bay idhaahdeen mudan in la dhegaysto yani bini aadamku wuxuu wax ku qiimayn jiray haddii gabadh lagaa soo doontana waa nin dumarka la siiyo hadduu dankaa yeesho shafeeca kugu yimaadana waa nin magaci ergadiisa la aqbali karo hadduu hadlayana waa nin la dhegaysan karo nebigu wuu iska aamusay ma comment garaynin mid kalaa soo maray markaasuu yidhi kaa ka warrama markaasay idhaahdeen hadduu gabadh ku weydiistana mid loo guuriyo maaha hadduu erge kugu yimaadana ergadiisa ku la aqbalo maaha hadduu hadlana ku la dhegaysta maaha bay idhaahdeen yani nebigu wuxuu barayaa saxaabada mawaasiinta maxaa wax lagu qiimeeyaa bini aadamka see loo qiimeeyaa dabeetana wuxuu yidhi lamil'u haada min daak kaa hore iyagu lahaayeen waa wax walba wuu yahay dhulka muggiyo kaasa ninkan baa iskaga khayr badan buu nebigu yidhi waa hal nin iyo dhulka muggiyo kii kale ah maxaa halkan nin iyo dhulka muggii isweydaariyey waxa isweydaariyey mawaasiinta wax lagu qiimaynaya kala nooc ahaa waayo dhulka muggiyo naar ku sii socda geedi naareed ah faa'iido ma leh xabad jannada u sii socotaa dhaanto soo maaha hal qof xagga jannada u socda iyo dhulka muggiyo xagga naarta u guuraya dee faa'iido ma leh walidaalika buu nebigu wuxuu leeyahay dhulka muggi oo kaasa qof quroo kaasaa dhaama ayuha alaxiba waxaa dhibtu inaga haysataa waxa weeyaan dadka mawaasiintii baa laga qalday wixii ay wax ku qiimayn lahaayeen waxay wax ku qiimayn lahaayeen baa waxa laga dhigay wax bini aadamku ka qiimo badnaa gaadhi iyo daar iyo waxaasi maaha waxa wax lagu qiimeeyo qofkii mise daarood buu leeyahay qiimihiisu maaha mise gaadhuu wataana qiimihiisu maaha gaadhigu wataa noocuu yahayna qiimihiisu maaha qofku intuu rabbigii ku xidhan yahay u dhow yahay buu qiimihiisa dhabtaahi yahay taasun baana aakhiro marka la isugu yimaado wax anfacda adduunka inta la joogana kadeedka qofka ka biisa ilaa adduunka adoo waxaystaad kadeedan tahay haddaanad deganayn marka sidee su-aasha meeshan ku qoran waxa weeyaan sidee loo gaadhaa guusha dhabta ah si fudud baa lagu gaadhaa dhammaantiinna waa gaadhi kartaan waa jidkii nebi maxamed inaad raacdaan calayhi salaatu wasalaam dhammaantiin waa gaadhi kartaan dadka ha xamanin ha caayin ha maagin akhlaaqdaada hagaaji bini aadamka si fiican ula dhaqan waxaad ka xoog roontay waa cadaalad samee salaada iyo zakada iyo cibaadaadkaaga samee akhlaaqiyaadkaaga ku dhaqan waa in nin waliba awoodo in lacag u baahan maaha iyo magac iyo maamuus uma baahna waa in qof waliba awoodi karo idan waxaan rabaa un inaan idin idhaahdo guusha dhabtaa sidee loo gaadhaa haddii la yidhi dadkoo dhammi waa gaadhi karaa nebi maxamedna wuxuu yidhi dadkoo dhan baa jannada gelaya ilaa man abaa mooyaane ninkii isagu diida mooyaane
dadku jannaday wada gelayaan buu nebigu yidhi ninkii diida mooyaane oo yaa diiday baa la yidhi oo wuxuu yidhi ninkii i raacaana jannu geli buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee ninkii diidaana ay raaci waayaan isagaa diiday idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyntahay kuma xidhna inaad lacag haysato iyo inaanad haysanin kuma xidhna inaad madaxta iyo inaanad ahayn kuma xidhna inaad cilmi badantay iyo inaad cilmi yartay waxay ku xidhantao keliya itijaaha nololeed xagga aad u jeedisa un directionka aad u jeedeen raacaysid ma waddada xagga ilaahay qabataad maraysaa mise waddada xagga naarta qabataad maraysaa waddada xagga ilaahay qabata waad mari kartaa adoo lacag liya adoo faqiir iyo adoo waxhaysta iyo adoo maamuus leba ta xagga naartana intaba waa lagu mari karaa labadaa waddo inaynu kala dooranno ayuunbay ku xidhantahay guushu inta ay leeg tahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu ariiqa xaqa ayna tusiyo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين